وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. ثم ما بعد، waxaynu ku dhex jirnay tafsiiru suurati albaqara. suuratu albaqara tafsiirkeeda aayadda 147 qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi ina aladiina yaktumuuna kuwa qarinaya maa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah waa jinsu lkutub kutubtu ilaahay soo dejiye oo dhan wayashtaruuna bihi ku iibsanaya hamanan qaliilan lacag yar adduunyo kooban ulaa'ika kuwaasi maa yaakuluuna uma cunayaan fii butuunihim caloolahooda ila naara naarun bay u cunayaanay caloosha ku disayaan walaa yukallimuhum allah ilaahayna lama hadlayo yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim mana nadiifinayo dembiga kama dhaafayo walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyihin ulaa'ika kuwa noocaasi aladiina kuwii weeye ishtarawu dalaala baadidii bay ku iibsadeen ama ay ku bedesheenba bilhudaa ay bitarki lhudaa iyagoo hanuunka ka tegaya waalcadaaba cadaabkiina waxay dhaafsadeen bilmakfirati dembi dhaaf famaa asbarahum shay weyn baa ku sabirsiiyey ama xejiyey cala annaari naar ku xejiyo ku adkeeyey daalika arrintaas waxay ugu dhacday halaaggaa ilaahay wuxuu ugu riday bianna allaha nazala alkitaab ilaahay baa kitaabka soo dejiyey ama kutubta bilxaqi buu ku soo dejiyey xaq buu kutub ku keenay fakafaruu wey markaasay diideenay ka gaaloobeen wa ina aladiina ikhtalafuu fi lkitaab kuwii kitaabka isku khilaafay ee ku midoobi waayey lafii shiqaaqin baciid lafii shiqaaqin khilaaf bay ku sugan yihin baciidin aada u fog marka saddexdaa aayadood oo wada socda waxay u digeen kana dayriyeen culayska iyo dhibka saaranna uu rabbi muujinayaa dadkii dayacay ammaanada diinta ammaanooyinku way badan yihin laakiin ammaanada ugu culusi waa ammaanada dhinaca diinta marka kuwaa dayacay ee aayaadku ay ku soo degayeen waxay ahan culimadii reer banu israa'iil culimadii reer banu israa'iil yaqaanay kitaabkii towraad iyo kuwii kale injiil yaqaanay intaba aayaddu kuwaa ku soo degta laakiin qof kasta oo cilmiga yaqaano samaawiga ah ammaanada inuu dadka gaadhsiiyo waa waajib markaa dadku dee saddex qaybood unbay u qaybsamayaan xagga ammaanadano qof waajibkiisii gutayoo cilmigii samaawiga ahaa intuu bartay dadkana gaadhsiiyey isagoo hadyigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ama dhaqankii rasuulkii asxaabta ku dayanaya qofka labaadna waa qof xaasidahoo doonay waxa uu yaqaano inaanu dadka gaadhsiininba isagoon wax kaleba u jeedin wuxuunu isyidhi kuwan iyay ku soo gaadhin intaad taqaanana yay baranin jahligoodana ha iska weheshadaan qayb kalena waa qof cilmiga u qariyey si uu adduunyo u helo ama dadkan uu ka qarinaya ha ka helo ama kuwo kale oo uu u tanaasulayo oo iyaga uu u qiil dayayo ha ahaato qarad dunyawiya cilmiga wuxuu u qarinayaa ilaa waxaa uu doonayo uu gaadho ee maslaxad leh ee manfacad leh ee mansab iyo maalba leh ilaa uu kaa gaadho waxba ma sheegayo marka labadaa dambena eed bay leeyihiin qofka horena ammaan buu leeyahay waana nooc ayaan darre iyo iimaan xumo ah kuwa qariyey wixii aan soo dejiyey buu lahay min alkitaab ashaasi waa jinsiya ay ilkutub kutubuhu ilaahay soo dejiye o dhan keenna qur-aanka iyo kuwii ka horreeyeyba aayadduna waxay caddaysay kutubaha ilaahay inuu soo dejiyo dee waynaga rumaysan inuu ilaahay soo dejiyey wixii la bedbedelay waa halkeeda wayashtaruuna bihi hamanan qaliilan lacag yar bay ku iibsanayaan macnaheedu waxyiganuu qofkani ka tanaasulaya si uu wax adduunyaa u helo
si uu waxa dunya u helo ama caamaha u tanaasulo ama madaxa u tanaasulo ama culimaha u tanaasulo xaqa cadayntiisii uu ka gaabsaday si uu lacag yar u helo lacagta waxay doonaysaa ha ahaato ama adduunyada mugeedba ha ahaatee mar haddii diinta ilaahay la barbar dhiga qaliilkaasay u taagantay wax lagu iibsan karaa wax igama jiro kuwaasi calooshooda naar bay u cunayaan calooshooda naar bay u cunayaan macnaheedu waxa weeye wixii ay cuneen buu ilaahay naar ka dhigaya markaasaa caloolaha loo gelinaya lagu disaya markaasuu xiidmaha googoynaya iyo qaaxada oo shaygii ay cunayeen laftiisii ayaa uu ilaahay ka dhigayaa wuxuu ku cadaabo sideedaba haddii wax la cuno caloolunbaa loo cunaa intood wax cunto dhinac iskama dhaafis marka macnaheedu waxa weeye naarun bay sii badsanayaan inagu maal waa luqaduhu waxyaaba ay tadaakhulaan ama wadaagaan markaad shay qofka u sheegaysa inuu badsaday ayaa waxaad tidhaahdaa war waxani cunno ka badane ma calooshaad u cunaysa waar hebel wixii wuu badiyey oo calooshu u cunaya waxay ka turjumaysaa inuu qofkani badsanayo naar buu badsanaya waxyaabuhu ilaahay ku ciqaabayaanay ka mid mindhicirkaa laga soo ridaya xiidmaha sida xadiidka saxiixa ku sugan qofka cilmigiisii ku camal fali waaye ummadda ahlu naarkiina markaasay arkayaan isagoo ku wareegayo jiidi kari la xiidmihii mindhicirki maxaa kugu dhacay adigu dee waxbaabaad sheegi jirto diintaabaana kugu naqaanaya mee diinka waan idin fari jiray laakiin kumaan dhaqmi jirin xumaanta waan idiin diidi jiray laakiin waan samayn jiray dhaqan la-aanta layga raaciyo ku camal fallaanta marka sideedaba waxaad ku xisaabtantaa wax kastoo ilaahay dheeraad uu ku siiyey dhibkiisana wuu leeyahy haddii ilaahay uu dheeraad ku siiyo oo dadka wax dheerta maalan aqoontii iyo adduunkii iyo xoolihii iyo caqligii aad maaragtay dadka kala dheeray iyo khibraddii cududaadii iyo xooggii wax kastoo dadka dheer tahay waxba ha isxariifinin oo dadka ha ugu faanin oo ha ku aftaagin waa lagu daba taagan yahay taas waa arrin markaa daruuriya wacaalimun lam yacmalan bicilmihi mucadabun min qabli cubaadi lwathan dan hadduu qofku cilmigiisii ku camal fali waayo sanam caabidka sidiisaa loo caabudi ayaa loo cadaabi doonaa abaalmarintoodu waxa weeye inaanu ilaahay la hadlaynin oo sawka aakhiro ilaahay odhanaya ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun naarta ku fogaado aniga hayla hadlina sawka odhanaya marka qeyd baa la socdo macnaheedu waxa weeyaan kalaam ay ku farxaan ama naxariis leh ilaahay ma odhanayo kalaamka ilaahay uu ku odhanaya aakhiro waa mid isaga laftiisu cadaab ku ah walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim dee dembigana kama dhaafayo cadaab kuluna way leeyihin macnaha ku soo celcelintaasi waxay sheegaysaa cadhada alloo ku badan ilaa dadka iyo ilaahay waxa isbari lahaa ee u dhaxeeyey aqoon-yahanka diinta marka hadday ammaanadii dayaceen dadku inay ambadaan iyagaa u sababa weye ayaan darradaasay leeyihin abaalmarintoodii buu ilaahay wuxuu sii tilmaamay abaalmarinta kasaka waxa u gooyay abaalmarintana sabab ugu ahaa أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة هنوني هلو بالله سبر برنجي ولا يكابا قادنيس إلا هو الدين يدي لانه دين تين لقول لك ما هو وطريقة الرسول شيء الكبد بادين دين لان تنوى نقفه دين تسكرون شيء وايد وهلو يا هنون الدون كان الله بضع صنبا لو هيا ما هلو قام سوى هنونك قفكينا إلى هاي مو قصبين انتو إفكن شوغا اختيار بوسي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ده عقلي علمي بي الهي وحسيه وسيه وحي لبضع والضمدون كلا الدورة والعذاب بالمغفرة كارك الجنة عذاب كاركنا على قصي قاطع بركاسا وحا ليدي من نار تاسا قليسان لقى الشيكي بس الجنة تاسا قليسا ما أنا لقومها ليبا لأن الجنة كارك النار تانو قاضا والعذاب كل بشيء متروك أبي بعض قشاه بعض وحي قليسا كل بك اللي قد تجي بركب بالهدى بالمغفرة كواسي كتجي فما أصبرهم على النار
وتعجب بالله تعجب لياب إما تعجب أو تعجيب والله وضع بوا كسورة قلوي تعجب كوا لياب إلهي ولا ياب سيه تعجيب كنوا لياب معنى لياب وي إذن كنا إلى صر علمك صرف جا كوكلا شيء عجب يتعجب بدول بمستر كي مريا بدنا وحوي تعجب والله يابا بدنا عجبه تعجيبا إلهي بالله الله يابا إلا يسكت درانا ما حما لا يدا هذا إلهي والله يابا إذن كنا الله يابا بولي لا يابك إلهينا كأن الله ما بدها سبحانه وتعالى ويا كأنه وحكوس ليسي أقول الآن marka مثلا shay aad la yaabayso waa inuu kugu cusub yoonad hore ogeyn wax kugu soo kadiyoonad hore macluumaad uga haynin ayaa la yaab kugu keena laakiin ilaahay waxaanu sii ogeyn oo ku noqonaya wax cusub ma jiro laakiin taajubka ilaahay ka imanaya waa mid isaga u gooniyo si kala kolka loo eegana tahdiid baa la socda waa hanjabaad ayaa la socda ku sabir badana nimanku naar bal nimanka iyagoo intaasoo wanaag helaya intay barbar mareen naxariistii ilaahay weydaartay oo hanuunkiisii weydaartay oo dembi dhaafkii weydaartay nimanku naar ku sabir badan ah naari taarba uma hayaane laakiin waxa weeye ninka intanoo arrimoodoo foolxun u bareeray isagaaba isu diyaariyey naar inuu galo maxaa lagu cadaabay haddaad odhan lahayd sababtaa hore waxa sii raacaya dalika biana allaha nazala alkitaaba bilxaq إلهي با كتاب سود دجيو حق كان كو مركاسي فاختلفوا أما فكفروا فسحذفا حقي ما يقبل إلهي كبي قدبنا واسكو خلافين مركاسي دبتنا قالوا بين وإن الذين اختلفوا في الكتاب إلا في شقاق بعيد مركالكا واحد كأركتي قفبينتو يقانا إلهي وكلا حساب تمية قفبينتو يقانو إنو إهل كيسا وشاقو وأصحابتي سوشاقو ummadiisa u sheego intuu diinta hagaajin karayo qof waliba si qurux badan oo wanaagsan u gudbin karayo waajib ay ku tahay ila nabigu markuu nala hadlayay ummadda uu sagootiye wuxuu balliqu anni walaw aaya farubba muballaqin aw min saami aayadnaha tabariga gaarsiya diinta dadka قال الله تعالى إلهي با وحده ليس البر سما فلكم معها أن تولوا وجوهكم وجيدين إن أوجدسان قبل المشرق والمغرب حق قرحض أي كصوب حدا مشرقة هي حق قرحض كذا على قلبه ولكن البر سموه وحوي من آمن بر من آمن قفك إلهي رمية أيا سمفلكيس سمفليه واليوم الآخر آخرنا الرمية والملائكة ملائكة إلهينا الرمية والكتاب كتبتنا الرمية والنبيين نبينا الرمية وآت المال حولها نسية على حبه إسقى حولها إسكتش علبة ذوي القربات ذاتك النوالها حكتدي سسية واليتامى إيا أقوامها والمساكين إيا برشدة كوا باعا وابن السبيل يقفك الله إلى هذا إنا هلين أما إنا وضع يسعدالك والسائلين إيا كوا دور سنة يا أما وحويدي سنة وفي الرقاب قورت حرينتو أدومها حرينتو ضحكو بحية وأقام الصلاة صلاة دنا أوغا وآت الزكاة سكدنا قورئ ديبة والموفون وهم يجوا الموفون بعهدهم وكوا بلنتو ذا دمايسترا إذا عاهدوا مركب بلن قاضان والصابرين وأمدحوا وحنمانا يا أبو لهيري الصابرين كوا أتكاذا حجستة ودبر ذيقة في البأساء بلايدا كقد عيس نفطه والضراء يدباتها كقد عيس حولها وحين البأس هي مركز رجسيله قال أنت الدجالك حين البأس وقت بلايدا هذا جرتي الدجالك أولئك كوا أنت صوت المامود له الذين صدقوا وكوا إيمانك وذكرهم شاقي وأولئك كوا سكلي جود هم المتقون ودتك إلهي كعب سنة سبحانه أيد واحد كسر دكتي dad badan oo isqancinayo naftooda baan u sheegay buu Ilaahay u jawaabay oo gaalada kamid aha qolo waliba waxbay de shaydaanku u sheegayo ay ku faani jireen yahuud way faanayeen kristanku waa faani jireen
nimankii carbeedna way faanayeen meelaha ay ku faanayaan waxaa ka mid ah meelaha ay u jeedsadaan qiblada ah qolo kacbada ay qaabilayeen qolo qudus bay qaabilayeen qolo kalena qorax ka soo bax qolo waliba waxay leedahay annagaaba hagaagsanba waxyaabaha ay qabanayeen bay ku faanayaan qolo waliba marka qiimaynta dhabta ilaahay baa soo gudbiyay sida dadka loo qiimeynayo qof saxan iyo qof qaloocanba isagaa kala saaray wuxuu yidhi sifaadkan iyo tilmaamahan waaweyn lixda ah ee arkaanu iimaankii iyo arkaanu islaamkii iyo ixsaankii isugu jira qofka intaa sameeyey qofkaasaa samafalo ah camalkiisuna samafalya ka intan weydaartayna ma aha muxsin iyo samafalo toona waaya marka mubtadaha iyo khabarku si ay dhinac isu raacaan oo jawhar iyo carab macnaha ay isu egaadaan waa mudaaf baa jiraya laysa albira an tuwalluu wujuuhakum waxaan sheegayaa walaakina albira daa dambe samafalku maaha jihadaa iyo jihadaa in loo jeedsado iska jeesoo dhinacaad xiisaynayso haddaad dhinacaad xiisaynayso u jeedsato bidcaa la idhaah bidcadaasi mar way gaalnimay kuu saaraysaa marna faasiqnimo walaakina albaara samafaluhu man aamana billaahi wey ama walaakina da lbiri man aamana ama walaakina albira biru man aamana si ay isu qabtaan mubtadaha iyo ama khabarka iyo ismiga hore samafalka wanaagsani waxa weeye intaasoo arrimood dee waa arkaanu iimaanka maxaa ka maqan lixdii arkaanu iimaanka qadarkii unbaa ka maqan rumaynta ilaahay buu isaguna soo gelaya rumaynta ilaahay qofka ilaahay rumeeyey qadarkiisana wuu rumeeyey man aamana billaahi walyowmi alaakhiri walmalaa'ikati walkitaab ay ilkutub والنبيين intaa qofka rumeeyey ayaa samafalkii ilaahay oo addoomaha faray kaasaa la yimi waayo aayaddu aayatulbir waa aayadda samafalka sheegaysee koobta wa aata almaala calaa xubbi xoolihii buu bixiyey isagoo jecel wa innahu lixubbi اlkhayri la shadiid qofka bani aadamkii maalka wuu iska jecel yahay waynu ku soo dhalannaa sidaa daraaddeed baa waxyigu aada uma dhiiriye adduunka jacaylkiisa kama hadlo aakhiro jacaylkeeda laga hadlaa oo in badan wuu inagu dhiiriyaa waa arrin fidriya qofka way iskaga abuuranta inuu iska jecel yahay kii uu jeclaabu intuu iska fujiyey quudhayo uu dhiibay dadkuna siday usii kala mudayin markaad wax bixinayso waa kuwan sadaqa maxay yidhaha sadaqa bixiyo sokeeya sii dilqurbaa qaraabada xaaskii nebiga oo wax bixisay nebigu wuxuu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam addoon bay xoraysayoo wuxuu idhi haddii aad qaraabadaada siin lahayd laba ajri baad heli lahayd sadaqo iyo sokeeyo xidhiidhin keligood lagu koobi maayee dee waxaa iyagana la siinayaa agoontii dadkii iska fuqarada ahaa ee waalidkoodu dhintay masaakiintuna waaba kuwii baahnaa oo faqiir iyo miskiin way isku jiraan halkan qofka musaafirka aba islaamku isagana uu yidhi waxa la siiyo wuxuu aana u yahay inuu faramaran yahay ila qofku xoolihiisii uu ka yimid dee adduunkan horu mare ee wax badani ay sahlanaadeen laha ku xisaabtaminoo ha odhan maxaa loogu soo xawili waaye muu xawaaladda ka qaato xoolihiisii ha odhan intee oo meelood baan xawaaladi jirin oon telefoon jirin oo xaaladdu caadito macnaheedu waxa weeye qofki waxa laga yaabaa in sahaydii uu soo qaatay laga dhaco inuu ka madhato markaa musaafirku mar walba ku xisaabtan buu leeyahy musaafirku maka safarka bilaabaya mise waa ka turku jooga ah ee jidka maraya labadaba dheh saa'ilkuna waa qofka wax weydiisanaya ama faqiir ha ahaada ama yohaanine gobonnimo dara isaga ku tahay isagoon baahnayn inuu wax weydiisto horta qofku hadduu horta baahan yahay waa loo ogolaya inuu wax weydiisto kii aan baahnayna looma ogola inuu wax weydiisto iyadoon loo ogolayn hadduu ku weydiisto waxhaystaba waa kan aynu naqaano shaxaad soo lama idhaha shaxaad baa laya ninka wax shaxaada ogabay uma badnaa mar walba ma aha qof faramadhana isagoo qofku haysta ayuu ku shaxaadi karayaa lisaa'ili xaqun wain jaa calaa faras iska sii farasba ha wato ama gaadhibaha ku taagnaado moobilkiisina ha sito afkaa taagaye adigu gobonnimada ka raaco waxba ha gacan marhaysiinina sii waa halkaasuu islaam ka taagan yahay qofkii wax ku weydiista sii baa lay kan kalena waxaa la adigoon baahnayn waxba ha weydiisan
الرقاب وفي فك الرقاب وقورها اللي حرينا يو إسلامك أدونك وحو كتاقيه إن لحريو اللو دداله مركاسا وحا هدنا إيمانا يو حريركي لها هي حريركي أدومها لبدا بلا وناتشينيا وأقام الصلاة وآت الزكاة صلاة إيا السكادة لبدا وددك ديبايا بل وحا خير استباسو عليك صفات كان ددك الله ديغا يا وإنغا صلاة أوغيديد وحا ay u taagan tahay in la dhameystiro waa sunnayaasheedii waa faralkii waa rawaatibtii sunnayaashii kala raacayna waa la mid sakadiina wuu dhiibay oo waa quro u bixiyay si qurux badan walmuufuna icraabku isbadbedelaya walmuufuna bi'ahdi markuu marfuuc iyo ka yimaado waxa weeyaan qurxin buu u kordhinaya hadalku markuu si u socdo hadana si kale loo dhigo qurux iyo balaaq u kordhiyaa wa humul muufuna bi'ahdihim idha ahadu waa kuwa ballantooda oofiya marka ay ballan qaadaan ballanka ugu weyn la oofinayaana waa kii ilaahay aynu la galay caalamkii la yaryaraa la oran jiray caalamu dar ilaahay baa intuu khalqiga oo dhan soo ururiyay ilma bani aadam wuxuu ku yiri alastu bi rabbikum qalu bala rabbigiina maahay rabbiga iyaga baa taybaya kolka qofka halkii wanaagsanayd ku taagana ballankaasi oofiya kii kale uu ka baxay ballamaha dhexdeennuna de waa kuwa ilaahay lala galay uno عهدك إنه قفك أوفيانا وحي شيغيسا إنه لاي مستاقية إنه شخصيات لاي لغو حساب تامي كرو لغو تلقالي كرو دادك إنه احترام يقدرين يا بي شيغيس بل الله أنتنا وحي شيغيسا قفك سعيدة وأتشروا بلانتك قبحي إن أنا أكتي سوزني كالهين يميسان إلهينا آنو كحشونين مركا عهودي فقه وكالي جلال معاملات يتي بلامها يتي مسؤولية يتي ما لا يسوي منه وعام والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وفي سمو منكم ما هم برورت أو قيلية أو قادوا وكل عين وضد كيس بدل مركز هذه يتير بلايا يكون عبا مركز بأساء ضراء بأساء نوح ويدي بعتذك قد على حاجة نفط ضراء نوح حاجة فقرقة xoolaha kaga dhaca marka qaar koodna culimadu way isweydaariyaan ama culama luqa xiina albaas waa marka dagaalka marka fulayaal ma aha qadarka ay aaminsan yihiin oo kalsooni bay qabaano waxay aaminsan yihiin wuxuu ilaahay u qadaray inuu la kulmi doono sidaasana saadada ay ku heleen sidoo nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khayr diinki saxiixa qofka mu'minka waa qof la yaaba arrimihiisa oo dhan wada khayr markay uu khayr helo uu ku mahadnaqaya khayr bay u noqonaysaa markay balaaya ku dhacdo uu sabraya khayr bay u tahay ulaa'ika alladhiina sadaqu wa ulaa'ika humul muttaquun taqwa iyo iimaan la iskama sheegto una dadka taqwada leh ee iimaankooda ka run sheega waa kuwa wallahu subhanahu wa ta'ala